السلام عليكم وضوح بلابدونا عتبكي لباد فراكشنكا أما ججبكا ومحي ججبكو وحاو تاقي هاي قيب كميدا وحكود إمكا هدي وحلو كالجبيو ترى قيبا ججبكو وحاو كتصيا انتا وحيات قيبا حان كهي ستادوغو تصالحان إمكا هدي كيك أين سوق قادنو كيكي لبا لو كالجبيي قيبا لعناي qayb baxarsan xisaab ahaan sideen ku qori kareynaa waxaan u qori kareynaa horta marka horeysa keega waxaan u qaybinaa labadii ayaad hooseeya ka dhiganaysaa imsaan la cunay qayb baa la cunay marka halkii la cunayna xagga sare saarnaysaa marka waxaad u akhriyaysaa laba meelood oo meel haddii iminka keegii 4 meelood loo qaybiyo qayb la cuno xisaab ahaan sideen ku qornaa waxaan sameynaynaa keega marka hore misaad u qaybisay 4 qaybood baa loo qaybiyay waa sax hooseeyaad ka dhiganaysaa 4tii imisa la cunay hal baa la cunay halkiin xagga sare saarnaysaa marka waxaad u akhriyaysaa 4 meelood oo meel ayaa la cunay kanse ku xigaadaynu eegno keegii 4 meelood baa loo qaybiyay waxaa la cunay 3 meelood xisaab ahaan markaynu qorayno waxaynu hooseysiinaynaa marka hore keega intaanu qaybinay keega waxaynu qaybinay 4 qaybood imisa qaybood baa la cunay 3 xagga sare saarnaysaa marka waxaad u akhriyaysaa 4 meelood oo 3 meelood ayaa la cunay imika waxaan kala baran doonaa sareeye iyo hooseeye marka jajabka la qorayo waxaa jira laba qaybood oo waaweyn waa sareeye iyo hooseeye sareeyuhu waa inta qaybood ee aad haysato hooseeyuhuna waa inta qaybood ee wixii guud loo qaybiyay qaybaha jajabka waxaa jira 3 qaybood oo kala duwan oo loo qaybiyo jajabka qaybta koobaad hadaynu eegno waxaa loo yaqaanaa jajab qumane ama proper fractions by English lagu yiraahdaa jajab qumanuhu waa ka sareeyuhu uu ka yar yahay hooseeyaha imika hal loo qaybiyay 2 5 loo qaybiyay 8 sareeyaha yar 13 loo qaybiyay 12 sareeyaha yar hadii jeer sareeyuhu ka yar yahay hooseeyaha si waxaad ogaataa marka la joogo jajab qumanaha hadii jeer hal buu ka yar yahay imika hal hadii loo qaybiyo 2 de waa half 0.5 ku subaxay wax halka yar imika 5 hadii loo qaybiyo 8 waxa ku subaxay wax halka yar 13 loo qaybiyo 12 waxa ku subaxay wax halka yar qaybta labaad waxa loo yaqaanaa jajab maqumane ama improper fractions by English lagu yiraahdaa jajab maqumanahu waa ka sareeyuhu uu ka weyn yahay hooseeyaha imika 3 loo qaybiyo 2 sareeyaha weyn 7 loo qaybiyo 5 sareeyaha weyn 14 loo qaybiyo 9 sareeyaha isna weyn si waxaad ogaataa marka la joogo jajab maqumanaha had iyo jeer wuxuu ka weyn yahay hal imika 3 hadii loo qaybiyo 2 waxa ku soo baxaya wax halka weyn tira halka weyn baa ku soo baxaysa 7 loo qaybiyo 5 waxa ku soo baxaya tira halka weyn sidaas la mid ah 14 loo qaybiyo 9 tira halka weyn baa ku soo baxaysa qaybta saddexaad waxa la yiraahdaa jajabka kan ama mixed fractions by English lagu yiraahdaa jajabka kan wuxuu haystaa qayb kamida tira idil iyo qayb kamida tira jajaba imika horgala hal iyo jajab 1 hal loo qaybiyo 2 3 loo qaybiyo 4 oo horgala 3 ay u tahay hal loo qaybiyo 4 oo horgala 2 u tahay marka jajabka kan baa kana loo yaqaanaa waxaan eegi doonaa calaamadaha loo isticmaalo jajabka waxaa loo isticmaalaa iyada oo mar sareeye iyo hooseeye loo kala sameeyo sida shila soo aragnay waxaa sidoo kale la isticmaali karaa iyada oo loo dhaxaysiinayo labada tiro ee jajabka ahaa forward slash calaamada leeraa waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa calaamada saamiga ama ratio-da iyada oo labada tiro ee jajabka ah loo dhaxaysiinayo calaamadii la soo dhigi jiray saamiga ahayd oo ay noqonayso saamiga qayb marka loo eego wixii guud lagu siiyay waxaa la isticmaalayo kale iyadoo soo qaybinta caadiga la isticmaalayo oo la oranayo 3 loo qaybiyo 4 ama 3/4 waxaad si ogaataa hooseeyuhu marka la joogo jajabka ma noqon karo 0 hadii uu 0 noqdo waxa xisaabtaasi ka noqonaysa undefined ama xisaaban qeexnayn laakiin jajabka marka la joogo 0 sareeyo uu noqon karaa hadduu sareeyo aad aragto isagoo noqday waxa ka noqonaysa xisaabtaasi ever tusaalayaasha baynu eegi doonaa jajab dhafan aynu ugu shaqeyno jajab maqumane markaynu doonayno inaynu u rogno qaabka la isticmaalaa qaabkaas aynu dhigan doonaa maanta tusaalaha koobaad hadaynu eegno
horgalaha horta isoo qaad igu xigsii tiradii jajabka ahayd. markaa jajab dhafan wuxuu ka kooban yahay tiro idil iyo tiro jajab ah oo 3 loo qaybiyey 4 ah. marka laga shaqeynayo roodana jajab noqonaya marka hore hooseeyaha ayaan waxaan ku dhufanaynaa horgalaha waa 4 ku dhufan 2 waa 8 hada sareeya okay waa 11. marka 11 baad waxaad ka dhiganaysaa waxay ku noqonayaan sareeye hooseeyaha 4 waad soo qaadanaysaa. marka sareeyaha weyn jajab noqon inuu noqonayaa. tusaale labaad aynu eegno waxaynu qoranaynaa horgalaha oo 4 jajabtana way ku xigsiinaynaa 5 loo qaybiyay 3. marka 3 baynu 4 ku dhufanaynaa waa 12 5 ugu gee waa 17. marka 17kii sareeyay noqonayaan hooseeyana waad iskala soo daadegaysaa waad iska soo qaadanaysaa triga ka saddexaad aynu eegno horgalaha ayaad horta soo qaadanaysaa waad weynaysiinaysaa jajabkii baad igu xigsiinaysaa 2 loo qaybiyay 5. markaynu shogayno hooseeyana ku dhufana horgalaha waa 10 2 igu sii geeyo sareeyaha oo 12 hooseeyana waad iskala soo wareejisanaysaa 5. ka afraad hadaynu eegno horgalaha 5 horgalaha iyaga oo diro weynaysiinaysaa horgalaha 5 jajabku wuxuu 5 loo qaybiyay 7. marka hooseeyaha horgalaha igu dhufo waa 35 5 igu geeyo waa 40 baa sareeyay noqonaysaa. marka tirada la soo baxday hooseeyahana waa iskala soo wareegaysaa 7 ah. tusaale ugu dambeeya hadaynu eegno 5aad marka hore horgalaha ee qor igu xigsiyo jajabka 0 loo qaybiyay 8. marka waxaan sameynaynaa hooseeyaha horta igu dhufo horgalaha waxa weeye 40 buura 40 eber uge oo 40 uun. marka sareeyay noqonaya xisaabta ku soo baxday hooseeyahana waad iska soo wareejisanaysaa 8. cashirkii kan ka horreeyay waxaan ku soo aragnay sida jajab dhafan loogu bedelo jajab maqmane. maanta cashirkan waxaan ku eegi doonaa sida jajab maqmane loogu bedelo jajab dhafan. tusaalayaashan hadaynu eegno tusaalaha koobaad hadaynu eegno jajabka 5 loo qaybiyay 2 ayaynu doonaynaa u bedelno jajab dhafan. markaas aynu jajab dhafan ugu bedelano waxaanu sameynaynaa jajabkan aynu haysano ayaan waxaan gashanaynaa radical. marka 5 sareeyaha radicalkanu gashanaynaa gudihiisa 2dana dibadaynu dhiganaynaa. marka tirada marka 2 lagu dhufto 5 igu soo dhow waa 4. marka 2 igu soo saaro igu soo dhufto waa 4 isoo kala go xara hal bay noqonaya. marka jajab dhafan saad ugu qorato waxaad sameynaysaa xaraha ku soo xaray sareeyaad ka dhiganaysaa. tirada wax qiiminaysa 2daan hooseeya ku noqonaysa. jawaabta xagga sare ku soo baxdana horgalaad ka dhiganaysa. marka waa inaga jajab dhafan oo qornay. tusaalaha labaad hadaynu eegno jajabka 6 loo qaybiyay 4 bay doonaynaa inaynu jajab dhafan u bedelno. waxaan sameynaynaa marka hore radical baynu gashanaynaa jajabtan sareeyaha 6 gudahaynu gashanaynaa 4 hore waxaan ka dhiganaynaa qaybiye. marka tirada marka 4 lagu dhufto 6 igu soo dhow waa 1 1 igu soo dhufo 4 waa 4 isoo kala go 2 xaray noqday. marka jajab dhafan si aynu ugu qorno xaraaga inoo soo xaray 2 sareeyaynu ka dhiganaynaa. tirada wax qiiminaysa 4 hooseeyaynu ka dhigaynaa. jawaabta xagga sare inoo soo baxday halkaana horgalaynu ka dhigaynaa. marka jajab dhafan bay sidaa inoo soo baxday. su'aasha saddexaad hadaynu eegno jajab 8 loo qaybiyay 3 ma doonayaa inaanu qorto jajab dhafan u bedelo. marka waxaan sameynayaa radicalka waxaan gelinayaa sareeyaha ayaan gudaha gelinayaa jajabtayda hooseeyahan dibadaan dhiganaya. marka tirada marka 3 lagu dhufto 8 igu soo dhow waa 6. marka 2 ku soo dhufsanayaa 2 3 igu soo dhufso waa 6 hadha waxay noqonayaa 2. marka jajab dhafan markaan doonayaa qoro hadhaaga ay soo xaray sareeyaan ka dhiganayaa 2 tirada wax qiiminaysan hooseeyaan ka dhiganayaa. jawaabta xagga sare ku soo baxday 2daana horgalay noqonaysaa. marka sidaas ayay jawaab sax kugu tahay oo jajab dhafan ay kugu noqonaysaa. su'aasha ku xigta jajab 10 loo qaybiyay 5 baan doonayaa inaan u rogo jajab dhafan. marka
sidii aynu awalba sameynaynay waxaan sameynayaa si aan ugu rogo jajab dhafan marka hore radical equal tirada sarreeyaha ah gudihiisa tirada hooseeyana wax qiimaysa marka tirada marka 5 lagu dhufto 10 siisa waa 2 5 lagu soo dhufto waa 10 marka soo kala gooyo waa eber marka waxaan sameynayaa eber baa xaraay noqday eberka sarreeyad ka dhiganaysaa tirada wax qiimaynaysa hooseeyad ka dhigaysaa horgalaha jawaabta ku soo baxdana horgalay noqonaysaa marka jajab ayay ii soo baxday jajab dhafan ayay noqonaysaa sax ugu tahay ta ugu dambaysa tan eegno jajab 11 loo qaybiyay 4 ayaan doonayaa inaan u rogo jajab dhafan marka waxaan sameynayaa sida walba ay sameyn jirnay radical beginning tirada sarreeyaha hooseeyana wax qiimaysan ka dhigay tirada marka afar lagu dhufto 11 igu soo dhow waa 3 waa 2 afar igu soo dhufto waa 8 marka soo kala gooyo waxa soo hadhaya 3 baa hadha noqotay marka saan jajab dhafan ugu rogo hooseeyaha sarreeyad ka dhiganaysaa afar tara hooseeyad ka dhigaysaa jawaabta labada ku soo baxdeen horkalaad ka dhigaysaa marka sidaas ayay jajab dhafan ugu noqoto sax ugu tahay hubin markaan doonay check inaan ku sameeyaan hubiyo inay jawaabteedu sax tahay hooseeyaha ayaan ku dhufanaya horkalaha waa 8 igu sii waa 11 marka 11kii waa sarreeye afarta hooseeyana duwan soo daadagaya marka jawaabtani waxay la mid tahay su'aashu marka goorsi la weydiiyay marka sidaas ayay sax ugu noqonaysaa check-in marka doonaysan aad ku sameyso ama aad hubiso